Shawriga degmada Dharkeenley waxaa xaafadan looga qaxay burcad hubaysan oo dadka disha kuwaasoo habeenkii dadka ka dhaca wax kasto sitaan marka amniga xaafada aad u xun yahay marka dadka xaafada amnigeeda oo shuruud ay ka qaadanayaan waxaan u sheegaynaa inay fiirmo gaar u yeeshaan xaafadan amnigeeda gacantu ka baxay xaafada murug xadkeedii dhaaftay ayaa ka jirta dhacaya dilku nolol maalmeedka ayuu halkan ka noqday Xuseen Maxamed Jamaal waxa uu ahaa wiil yar oo noloshu bilow u ahayd uu shaqaysanayay hami badan ayuuna nolosha ka lahaa balse waxa xaafadii ku soo barbaaray ku dilay tuuga dhacda dadka kuwaasoo caadaystay dilka hooyo Faadumo Jamaal Cabdullaahi waxay dhashay wiilka ay dileen kooxda burcadda ahi waxay la ilmeynaysaa xaq darrada looga dilay wiilkeedii ay jeclayd rabbigii hibadii ii dhiibay ayaa haddana iga jeclaaday alxamdulilah laakiin gacan ka xaq daran ayaa cunugayga iga dishay maantana cabasho ma muujin karin yacni waxaan la calool xumaanaya waxay tahay aan dacwo u jeedisan waayey yaa haddaan dacwooda xataa yacni aan u jeedisan waayey ma u dhalanin ani waddanka waxaan ka soo jeedaa waddanka Oromiya khaasatan magaalada Baale aan ka soo jeedaa yacni laakiin waxaan ku dhashay oo ku barbaaray hooyaday raxween ah waxaan ku barbaaray magaalada Xamar weligay waddankayga ma aanan tagin yacni waxa yeelan waxay tahay meeshan aan ku dhashay yacni hibadii Ilaahay siiyay alxamdulillaah qadarta Ilaahay waa ogolahay alxamdulillaah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun xaafada Shawriga degmada Dharkeenley dhaqaaq dadku ma sameyn karaan habeenkii iyagoo ka baqaya dadku in la dilo ama la dhaco Cabdikariin Maxamed waa mid ka mid ah macallimiinta Xuseen Maxamed Jamaal oo ah wiilka la dilay wuxuu ka sheekeynayaa dhibka xaafada Shawriga ka jira xaafada waxaan aragnaa kaliya tuuga iyo macuusley aragnaa yarkan wax dileen waxay ahaayeen tuuga iyo macuusley dhibka hadda intuusan dhicin aniga waxaan deganahay jidkaan naga dambeeya hadda deganahay habeenada kamid ah waxa dhacday macnaha waxaan rabaa xoogaa inaan idin tusaaleeyo dhibaatada xaafada ka jirto habeenada kamid ah gabdha mid aan kuwaani la dhashtay iyo mid kale ayadana deriska ahayd xilli imtixaanay lahaayeen imtixaankooda wax diyaariska markay ka imaadeen ayagoo soo sagootiyay jidka ayagoo jooga tuuga kuwana tuuray ku qabtay kuwana qoriyo ku qabtay gabdhihii waa qayliyeen markay qayliyeen anaga ku soo baxnay xaafada xoogaa waxa ka jirta rabsho kalena way jirtaa oo ciyaalka xaafada meelahan kor ka imaaday iyo xaafadan degan oo israbsheeyana way jirtaa marka anaga waxaan u maleeynaa ciyaalkii rabshada waday inay yihiin aan u maleeynay waa ku soo oradnay iskoobe iyo wixii markaas inoo dhawaan la soo wada oradnay gadaal dambe markaan ku soo dhawaanay qoryaana la soo jeestay xabadan noogu soo furay ilaahay mahadiis habeenkaas koraan nooga dhigay Aaba Jamaal Cabdullaahi waa aabaha wiilka la dilay waxa uu fadhiyay meel aan ka fogeyn halka burcad ku dishay wiilkiisa wuxuuna Shabeelle TV u sheegay in weli cabsi ay ka jirto xaafadooda walaalo horta dhibka xaafada yaalo maanta dhibka dadka ana qabo Soomaali inaan qabto laakiin aniga xaafadan Shawriga dhib aad iyo aad qabnaa wax haddana bilaawatay ma aan wiilkay kaliis ka bilaaban isbuuc kasto maalin kasto habeen kasto mar rafaada joognaa موبايل حافظ إسكال في نفتنا ولا فينا مغرب الدلقة قريال وكل أرداء نما عويس وتدارك ولا أرداء لا بقف لا يرد ولا كل أرداء حافظ لي بعض يالو إلهي أنا سوق جارو أنا ويلكي والدي الحمد لله ما كل الدلاين واجوبا ما شافني ماشي الجودي لا ويلكي نص كي شنك طلعوا نوم جيرين وحاول لا يرد بدن أمشي فدي أنا ما شافني حافظ شورك مل كميتاي مركا wiilkii wiilal badan meesha fadhiya la wiila soo martay qoryo wataan oo dedan macwiis ku dedan macwiis la yiraahdo markaas ciyaalkii waa ku ooriyeen hadii ku ooriyeen ka bacdi wiilkii xabadii xagga ka suurideen wiilkii ay ku dhacday alxamdulillah ilaahay isi hada ilaahay ka qaad laakiin xaafada Shawriga maanta dhibkeeda ma yaro xaafadaha Muqdisho ugu liitay inay tanmaleena guriga dhisayna ma dhisa karno guriga dayactirna ma dayactiro karno degmada tagay warqada soo goosatay kuma shaqeeyso Faadumo Jamaal Cabdullaahi waa eedada wiilka la dilay waxay ka dalbanaysaa dawladda federaalka Soomaaliya inay cadaalad keenaan dadkii dilay wiilkooda waxaan naga baxay wiil 17 jir hadda ogooday bisha labaad waxa laba bil ka qaatay 18 sano ma fahamtay dawladda waxaan ka codsanaynaa inay noo raadiso wiilkayna wixii dil wax alla inay noo raadiso oo dadkaas aan ka mid ahay Soomaali anaga waxaan ka sheeganayna ma lahan hooyadan waa naag Soomaaliya ku kornay iskoolna Soomaaliya ku dhiganay adduunyada aan leenahay maanta Soomaaliya ku yeelno Soomaali maanta dib ay nooga gaarsiin ma lahan waxa aan ka sheeganayna ma lahan laakiin waxaan codsanaynaa haddana aan dawladda ka codsanaynaa guriyana cashuur waa ka bixinaa ma fahamtay wax kasta ay Soomaaliya ay tahay waa la qaybsanaa Soomaaliya anaga waxaan rabnaa wiilkeena dhiigiisa
in nala raadiyo oo dadka dil la raadiyo. Aabbe Jamaal Cabdulaahi waxa uu dacwooday saldhigga degmada Dharkeenley balse saldhigga waa u raadi waayay dadkii dilay wiilkiisa waxuuna ka waayay wax garab ah. ها تيدي ويلكي كور حافظ الله صوغل ويلكي كور دور مرة الله صوغل حافظان odayaalka ka dhaqameedka dhan inaa baxnay taliyaha u tagnay taliyaha waa u tagnay wax noo qaba dhan xaafad waa waa dhiiritaan waa habeenkii maqribka diligaar waa la kala ordaa 12 saac diligaar waa la kala ordaa ninkaas mobilkiisa waa la ordaa waa la soo galaa leey jaayga markii la salsaayay waa la soo galaa nuluusa anaga xabsi xaafadda waa jiifo weysanahay marka taliyaha marka u tagnay insha Allah maanta ka bilaab waxaan la qabaraawi maalintii ugu horreysay 10 qof ugu tagnay maalin kale u tagnay hal habeenuu noo yimid taliyaha waa maasan yahay 2 saac buu yimid banaanka la soo wada baxay waa gudbay isku habeenkii soo galeen xaafadda nabad ma jirto dhib ay yaalo xaafadda shooriga laga soo gaaro wax jiro nabad ma jirto meeshan macawiisley nima macawiisley la yiraahdo macawiis isku soo dagayaan qoryaha ka wataan kii mobile hatta mobile dika waa in qoray ku garaacayaan wali qoyska Jamaal Cabdulaahi waxay isku dhaafinayaan xanuunka dhimashada wiilkooda isa samarsiin iyo inay wehel ka dhigtaan xasuusta iyo sawirrada wiilkooda dad badan oo la dulmiyena waxay dawladda uga fadhiyaan in dadka dambiyada geysto cadaalad la hor keeno halkaan aad u jeedaan waxa ku sugan qoyska Xuseen Maxamed Jamaal oo